intaad ku fiican tahay kuwad waxyaalahaad u baahan tahay inaad baratana xooga saar. qofka waxa wax u taraya waa wuxuu naftiisa geliyo. haddaad cunto tayo la geliso waxbay kuu tari, haddaad nasasho fiican geliso naftaada waxbay kuu tari, haddaad maal gelisood wax ku barato waxbay naftaada kuu tari. wax walba naftaada geliso waa tii kuu soo celisa hadhow toole. waxaad gelinayso inay noqoto wax tayo leh oo ku anfacaya. marka mar walbaba dadaalku inuu xaggaaga ka iman karo. samirkuna waa muhiim. samirku waa waxa wax dhisa. maanta marka wax la beerayo beeritaanka waxaad beertay dee beriba geedkii kuma soo baxayo midhaheegii. sanaday qaadan kartaa, bilay qaadan kartaa inay beertaadu dee ku weynaato. amba geedkan uu kusoo baxaba dhowr bilood bay qaadan kartaa. marka inaad samirtaa waa loo baahan yahay. maanta waxbaad beertay, beeritaanka waa inaad ku samirto. geedkaa dhan aad beerayso midhuhu soo saarayo nus baa qurmi kara, nus baa xumaan kara. marka in adigu dadaalka aad samaynayso ay de waxyaalo kuu suuro geli waayaan waxay ka mid tahay processka successka ku dhex jiro. guusha dariiqa loo marayo in badan oo maxay waxa ku jira waxyaalo badan oo ku hirgelinin. in badan amba 3 laabkeeda oo waxyaalo ku hirgelin oo jira. marka intaan ku hirgelinin hadaad xooga saarto intaad ku guuleysatay baad yaraysanaysaa. marka mar walba oo meel isku istaagto ay arrimuhu ku socon waayaan oo xanuun kugu yar noqdo shaydaanka iska naar bismillaahir rahmaanir rahiim de waxyaalihii ku hirgalay soo tiri. markaad soo tirisaad aragto si u badan yihiin dadaalkaaga sida u badan yahay intaas qalbiga ku qaboojinaysa. hadaad mar walba tawakkal cala Allah ku socotana maba xasuusanaysid waxyaalaha ku hirgali waay waxaad leedahay kulley khayr ima lahayn. marka waa muhiim walaalayaal in aanad qofka dhageysanaya ka hadlaya inaanad niyad jabin marka wax ku noqon waayaan. mar walba waxaad ogaataa in sheegu amba failurku amba guurdarada aad adigu dareensan tahay inay tahay tii jihada ku tusaysay halkii aad mari lahayd. GPS oo kale bay noo tahay sheegu. GPS bay ku tahay failurku. GPS bay ku tahay guuldarada aad dareensan tahay. GPS bay ku tahay because halka waad ku joogsatay waxa way ku noqon waayeen. waxa lagu leeyahay nihow meeshan waad isku istaagtay bal left u weeco amba right u weeco ama inta dib u yaro noqoto gees u yaro leexo laakiin dariiqan ma ku sii wadi kartid. adiga ayay ku tahay sidani wanaag badan baa kugu jira inaad meel isku istaagto because waxaan soo socda kuma qaalibna. waxyaalahan soo socda jidkana dad ku sii socon lahayd maaha wax ku tiri lahaa. noloshan walaalayaal markaynu soo dhalanay cidina buuq diyaarana muusiina namu oran 10 jir markaa tahay waxaad helaysaa, 20 jir markaa tahay waxaad helaysaa, 30 markaa tahay waxaad helaysaa. waxaan oo dhan walaalayaal ma ogin, caalamul qayb ma nihin. waxaasoo dhan rabbigeena abuura ayaa og. marka inaynu nolosha wax walba la kulanaa inaga 10 bay noo tahay. wax kastoo xanuun badanna oo wax ku xoojinaya waa wax aqliga maxaa kobciya. dad badan waxay yiraahdaan aqliga in waxyaalaha la dhiganayo waxba u taraa waxa la dhiganayo, waxba u taraa waxa baranayso. laakiin aqliga badiyaa waxa koriya waa experience-ka. waa qofku wuxuu indhihiisa ku soo arko, gacmihiisa ku soo taabto, uu ku soo noolaado. taas aqliga kordhisa. waa experience-ka waxa aqliga kordhiya. badiyaa markaad xanuun yar dareento aqliga kaasaa kordhiya. run ahaantan waa saan dareemay. I hope inaad la dareensan tihiin. videogan waxaan u sameeyay dhammaan intii dadaalaysay faraha wax ka qaaday ha ka qaadina. marka kaliya faraha wax ka qaadayso markaad soo yarnasanaysid dadaalka kuwad walaahida saad halba marxalad u wado xataa hadaad ku guuldareysato guuldaradaas waa mid ku tilmaamaya un dariiq kale. ka aad bay idin salaamaya. Assalaamu calaykum.